baahi badan, kaadi badan iyo oon badan. Calaamadahaas oo calaamadeedu ugu weyn ah waxa soo raaci kara inuu qofkii culayska si degdeg ugu dhaco asoonan ogeyn inuu aragoo kale isku dardarsamo. Asalaamu calaykum, waa walaalkiin Turxadle. Maanta waxaan ka hadli doonaa cudurka loo yaqaan sokorow ama kaadi macaan, kaasoo keena in sokortaada ay badato jirkaasoo loo yaqaano sokorta ku badan jirkaaga ah. Maxaa keeni kara marka si aan u fahanno waa inaan marka hore aan fahanna wax loo yaqaano dheecaan loo yaqaano insulin, kaasoo laga soo daayo ganaca ama pancreas oo caloosha hoostiisa ku yaalo. Markii aad cunto waxaa laga soo dhuuqa mindhiciraha markii laga soo dhuuqo wixii sokor ah dhiigga ayaa lagu soo shubaya. Sokorta markay dhiig imaato waxay u baahan tahay in insulin ay hesho si loo xareeyo ama loogu keediyo meelihii loogu talagalay. haddaba ayadoo dhowr nooc ah, mid waxaa la yiraahdaa type 1, mid waxaa la yiraahdaa type 2, midna waxaa la yiraahdaa gestational diabetics. Type 1 haddaan galno, insulinta aslanba waa maqan tahay, wax insulina ma jirto. Type 2ga waxaa la yiraahdaa dadka weyn oo ku dhaca insulinta wax yar mararka qaar ayaa la helayaa, laakiin qofkii kuma filno, wuxuu u baahan yahay caawin daaweyn in loogu daro. mararka qaar insulintaadi waa lasoo daynayaa in kugu filan, laakiin waa resistance ama derbigii ama furihii qufulkii ay ku furi lahayd furaha ayaa diidaya inay furto, sidaa daraaddeed sokortaada ma xariismayso. midda kale haweenka sidoo kale waa iyadana markii ay uur yeeshaan waxaa imaanaysa sida resistancegaas oo kale, laakiin ayaga waxay uga fiican yihiin labada aan soo dhaafnay. markii uurka ama cunuga ay dhasho haweenta way ka daawoobaysaa. haddaba maxaa calaamado isku arki kartaa? calaamadaha aad isku arki kartid waxaa kamid ah polydipsia, polyphagy, polyuria oo 3 calaamad oo afka qalaad lagu dhaha ah: baahi badan, kaadi badan iyo oon badan. calaamadahaas oo calaamadeedu ugu weyn ah waxa soo raaci kara inuu qofkii culayska si degdeg ugu dhaco asoonan ogeyn inuu aragoo kale isku dardarsamo. marka haddaa calaamadaha hadda aan soo sheegay isku aragto, waxaa u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaad dhakhtar u tagtid si lagu baaro, sababtoo ah 80% waxa waa cudurkii macaanka ayaa qarka u saaran tahay. maxaa keena marka? waxaa keeno inta badan aa la dhahaa genetic oo ah wax dhaxal ah, abaha ama hooyada midkood ama labadaba inay qabeen, ama wax environmental ah oo markaas meeshii aa ku nooleed ay ku saameysay. laakiin ilaa hadda lama hayo. cudurrada waxay kamid tahay aan la aqoon waxa keena 100% waxa keena aan la aqoon, laakiin cudur ahaan inuu jiro la ogyahay. sidaa daraaddeed waa cudur lala noolaalayo waqti dheer, wuxuu u baahan yahay daawooyinkiisa in la qaato haddaa qabto. haddaada qabinna wuxuu u baahan yahay in ka hortag aad sameyso haddiiba aad tahay dadka u nugul oo waalidkiis ay qabeen oo kusoo arkay. sidaa daraaddeed marka muhiimadda waxaa waaye sidee uga hortagnaa. waxaa looga hortagi karaa qofka inuu noloshiisa saxo, qaabka u nool yahay waa inuu cuntadiisa saxaa, cuntadiisa oo waxyaabaha sokorta ku badan tahay yareeyaa, waa inuu wiigii 4 maalin 3 maalin intuu almiitee karo ama gym aadi karo ama uu lugay karo ama baaskiil oo wada karo oo sameeyo, waa inuu qudaarta oo aad u cunaa, waa inuu cuntada dalaga wadanka oo aan qamadiga, galleyda, diirta, masagada, waxyaabaha lamidka qofka inuu cuno. sidaa daraaddeed si oo qofkii uga hortago, sababtoo ah waxay leeyihiin dhibaatooyin badan oo keenaya hadhow qofkii inuu noolaado ama complication badan ay leedahay. haddaba qofka qabo asigana maxaa laga rabaa? qofka qabo waxaa laga rabaa isku dhakhtarkiisa daawada usoo qoray, ama insulin ahaata ama kaniiniyada lagu cuno oo sokorta yaree ha ahaadaan, inuu sidiisa u qaato si joogto ah oonan si maalinna u qaato, isna cabiro isbuucii 2 ama 1 jeer, dhakhtarkiisana oo raaco qaabkii oo cuntada iyo ugu qoray. haddaba maxay yihiin dhibaatooyinka laga dhaxlo cudurka sokorow ama kaadi macaan? dhibaatooyinka laga dhaxlo waxaa kamid ah qofkii in maaragtay oo madax dhiig ku furmo, stroke oo keeno, in waxyaabaha oo aadka loo yaqaan ay tahay in neerfaha lugaha ay dhintaan oo polyneuropathy la dhaho, in nephropathy qofka ay ku dhacdo oo keliya ka fadhiisto hadhowna dhaqid u baahdo ama in keliya qof u bedelo, iyo indho la'aan ama arag la'aan taasoo loo yaqaano retinopathy. waxaa kaloo ayadana oo ka dhaxli karaa in qofkii lugta laga jaro ay ku dhacdo cudur loo yaqaano diabetic foot gas gangrena inay ku dhacdo, diabetic foot inay ku dhacdo, taasoo keenaysa in lugtii ay maaragtay dhiig la'aan ay ku dhacdo. sidaa daraaddeed lugta ay dhimato, waa in markaas la jaro ayay noqonaysa ama amputation loo sameeyo. haddaba dhibaatooyinkan si aan uga hortagno maxaa u baahan tahay? waxaa u baahan tahay talooyinka aad soo sheegay inaad qaadato haddaa qabto iyo haddaada qabin. haddii aad calaamadihii aan sheegay oo baahi badan, kaadi badan iyo oon badan aad isku aragtana,
in dhakhtarkaaga aad la xiriirto si lagu daaweeyo ama lagu baaro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi